Asalaamu calaykum. Mawduucana maanta waa kuma Kurdis. Xaggee bay ka yimaadeen Kurdidu? Kurdidu waa mid ka mid ah dadka asaliga ah ee ku nool bannaanka Mesopotamia iyo buuraha dhaadheer ee ku yaala koonfurta bari ee Turkiga, waqooyi bari Syria, waqooyiga Ciraaq, waqooyi galbeed Iiraan, koonfurta galbeed Armenia. Halaas oo wadan ayay waxay la wadaagaan xuduud. Kurdidu waa dad isku isir ah, isku dhaqan ah, isku luqad ah, inkastoo aysan lahayn lahjad caadi ah. Waxay kaloo haystaan dhowr diimood iyo caqiidooyin kala duwan, inkastoo badankood ay yihiin Muslimiin Sunni ah. Maxaysan u lahayn dowladda Kurdidu? Qarnigii 20aad, Kurdiyiin badan ayaa bilaabeen in ay tixgeliyaan in ay abuuraan wadan dhisan oo Kurdiyiin ah, guud ahaan loo yaqaano Kurdistaan. Dagaalkii koowaad kadib iyo guuldaradii boqortooyadii Cusmaaniyiinta, xulafadii reer galbeed ee guuleystay waxay dejiyeen dowlad Kurdi ah. Heshiiskii 1920-kii. Maxay Kurdiyiintu safka hore kaga jiraan la dagaalanka IS? Bartamihii sanadkii 2013, kooxda IS ayaa dagaalkeeda u weecisay dhinacyadeeda 3 Kurdiyiin ah oo xuduud la leh waqooyiga Syria. Waxay ka geysteen weeraro soo noqnoqday ilaa 2014 ay ka caroodeen cutubyada ilaalinta dadka YPG, garabka hubeysan ee Xisbiga Dimuqraadiga Kurdiyiinta Syria (PYD), iyada oo taa laga jawaabayo isbahaysimo caalami ah oo Mareykanka hogaaminayo oo duqeymo ka geystay xagga cirka ah waqooyiga Ciraaq, waxayna u direen la-taliyayaal militari si ay u caawiyaan. Bishii Sebtembar 2014, IS waxay weerar ku qaaday magaalo ku taala waqooyiga Kurdiyiinta Suuriya, iyada oo ku qasbaysa 10,000 oo qof in ay ka qaxaan xadka u dhow Turkiga.